maamo baa 10 neef oo ari ah qabtay maamadii baa la yiraahdaa mandad ayaa ugu soo degay xaradii riyaha galeer nin kasta marka waa taqaana bergii hore diintu waa iska yareed fahmade waxay u tagtay wadaad yar gardhuub oo macna hadda Madiina ay meelahaas ka soo akhristo oo koon dhaarahan walba halkii mandad ayaa xaradii xeenta ku soo degay wadaadii oo waran bay tiri waraga dhaaf waa shimbir caadi u yiri maamada xoogo moraalka ay ka jabtay kuwii hore wadaadii hore akhyaartii hore ayay dooratay Sheikh Abdulqaadir Jaylaan iyo kooxdiisa aadi وشيخ وحيدري مندد ما أنت حرد يا سود أحفد يستي الشيخ ورن أبشر ويري ورك يدون يساكاسه وفهم يسيت أبشر وانك عين كاس هم مذب كاس له حوون يحين تقول له يرى السعودية ويعرف أنسيني هرت قلبت جور عايسيري هرت حوجو وردي هلا آخرين وقال جور عاي ماشي على سكوكي ماضي كيل هاي ساكي مندد كواشم برعادي iyo ki abshiriyo idinkiisa lagu qaliyaa haday hilibki saxanka isku iimaaday shiishi kulul asagoo si gaadi haaya wadaadkii garuubka ahay ayaa Sheikh Abdulqaadir Jaylaani ciidankiisa darkay gacanta dhaxal ka qabtay casirkina inaad ka dhigta mandad shimbir caadi ah shiishi kululna aslaalta taas isku mehelaysid joojiyo ولا لا أنا وحنا ليه هاي ما أنت وحنا أبشر ووضع ما أنت وحنا أبشر ووضع CS دعالة فرصة أسئلة نسيوا نمع بينن MB لقصاد دور تجار سوءها وهو هاي أفيان كبرلمان كليدا of majority حل جوها كدب أيان لا ناي أفيان برلمان والله ناي شقدي سوق قبصدي نمع بيننك kadib waxa laga dhigay CS defense markuu noqday qarax maalintaas aan ugu dambeysay nabad baan ku sugunahay ninko uu macnaha uu maqan mooyaane nabad baan ku sugunahay haddana waxa laga dhigay wasiirka caafimaadka war wixii wareerkii shay iyo waadajay waa shaqeeyaysa ilaa ay kordhiila laga qaadaya waxay walaal ninkii magacaadu muujiyo waa loo duceeyaa ducaalo waxaan ku leeyahay gabdhaha gaaris waxay dhihi jireen ducaalo na daadahay marka meesha waa dhaafay afyeen Soomaaliyaad Soomaaliya Djibouti Ethiopia Kenya inta Soomaaliya joogta ada afyeen dood waxay gaartay anina fahantay aamus wax liigu guroon yar qayliyos asigana hor socdo xilli ajuuraan SPS laga dhigaa la gaari Soomaa وحاس كل وادها دعاله وحن كله هوشة ساس كسوة خير الله كسي وحاسنا الله كسي نين آقل أسكن جبنا أهاجري سنة هذا نينك ربع نين المهما سنة ربع إيو دعاله إيو جبناها وجير وسيد حقال إسكعيل سيد حمن توض قاضته واي أنا أسكري أنو وادب تاجنا waxaan leeyahay saddexda walaalayaal Soomaali horkaca mideeya gaalka madaxweynaha waxaan la qabanaa on President Ruto we had one big challenge since independence acquisition of official documents IDs birth certificates passports we are grateful the President William Ruto is the first president to remove these bottlenecks and we can access IDs but I have one fear. As we move to 2027, we are required to showcase our numbers because we used to use lack of IDs as an excuse. We are required to have 3 million voters registered in the region so that Ruto can make a second term with ease. We need to reciprocate. We don't want 300,000 voters in Northeastern. We need 3 million. So, mine is to request the DCCs and the county commissioner, members of parliament and all of you to make sure that we seize the moment, register as Kenyans, acquire the document, vote and return Ruto for a second time. Thank you very much.